صاقل مرة صدق. السلام عليكم. وعليكم السلام. waxaan ka caawinaa mudane waxaan maqlay in ay shirkaddan shaqo ka bannaan tahay sidaas awgeed maanta waxaan soo qaatay CV-gayga waxaan jeclaan lahaa in aan booskan ka bannaan oo aad soo bandhigteen inaan buuxiyo dhib ma lahane CV-gaaga ii dhib. محمد ما شاء الله وان أركا شهادين كاغا وشهادين آد السرية ونهانتي نوحا تهاي شهادين قدام بيو لقادان لهايا قادتي ما شاء الله شقادة أتسوع عدستي سيدي السيفيغا كوحسن رمو سو شقيس ما يبوس شقادان كما أنا سو شقينين بس waxaan aaminsan inaan shaqadan buuxin karo maxaa yeelay shahaadooyinkii waa aragtay anigu waxaan ahay PhD holder ah mana filaayo qof anigoo kala oo shahaadooyinkan haysto inuu shaqadan joogo okay ma xuma ninkaas xagga kaga muuqdan jeedaa ها waan u jeedaa ninkaasi waa nin PhD holder ah waa nin haysta shahaadooyinka ugu dambeeya waxbarashada la qaato balse maanta waa staafkayga maxaa sababay maxaa yeelay shaqooyinka halkan looga shaqeeyo wax xirfad ah oo u leeyahay ama uu si taqasus u soo bartay ma jiraan sidaas awgeed maanta waa staafkayga waa laga yaabaa booska markuu ka baxo inaan boos kaaga raadiyo marka haddii aadan wax xirfada lahayn soo dhowow shaqada staafnimadana ku soo dhowow oo hadda maamul waxaad dhihi rabtaa ninkaasoo kale ayaan staaf kaa dhiganaya adigana macquul maaha shahaadooyinkay oo aragtay oo PhD holder ah in aad tiraahdo maantay staafaan kaa dhiganaya see wax u jiraan okay ma xuma haddii aadan xirfad lahayn oo aadan shaqooyinkan aad soo dalbatay aadan wax aqoon ama wax xirfad aadan lahayn waa mahadsan shahaadooyinkaaga hoo aad u mahadsan tahay shahaadooyinkayga waa qaatay meelaan laga aqoonba maaragtay shahaadooyinka qiimahooda ayaan markii hore shaqo u soo doontay shaqadana waa isaga tagaanay sug saaxiib ha bixin ها si fiican maxay sheegay walaal mudanaha waxa ku doodayseen waa maqlaayay wuxuu kugu dhahay mudanaha wax xirfad ah ma lihid sidaas awgeed shirkadeena booskaaga ma bannaana muddo ka hor ayaan shaqadan oo kale soo codsaday oo isla shirkadana ciladii ugu weyn ee haystay waxay ahayd inaan xirfad lahayn marka saaxiib ma ahan in aad ku xanaaqdo booska ee waxaad ku xanaaqdaa nafsadaada dib isugu laabo shahaadooyinka ah haysato waa wax wanaagsan barashada asaasiga kasoo bilaabaneysay ilaa heer PhD holder ayaa gaartay hambalyo anigu sidoo kale xaafadda ay yeelaan shahaadooyinkan balse maxaa sababay inaan maanta staff aan noqdo maxaa yeelay wax xirfada ma aan lahayn marka waxaan kugula talin lahaa saaxiib inaad xirfadda aad barato haddii aad jaanis u helayso